iyadoo la wada og yahay in libaaxu yahay duurjoogta kuwa ugu khatarta badan ee weerara islamarkaana cuna noolayaal badan sida duurjoogta iyo dadkaba ayaa waxaan dhowaan booqday beer ku taalla magaalada Hargeysa oo lagu xanaaneeyo duurjoogta noocyadeeda kala duwan waxaana halkaasi xayawaanada lagu xanaaneeyo ka mid ahaa tiro libaaxi ah oo ay soo daawasho tagaan dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo kuwa kale ee qurba joogta ah ama ka yimaada dalka dibadiisa haddaba waxaa ii suurta gashay in aan waraysi kooban la yeesho mulkiilaha beertan oo ah Cali Maxamed Waran Cadde isagoo halkaasi ku xanaaneeya libaaxyadan iyo xayawaano kale waxaana sheekadiina dhex martay Cali Maxamed Waran Cadde ay u dhacday sidan ku soo dhaw telefishinka caalamiga ee Somali Channel bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan ka salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee daawanaya runtii libaaxyadan waxay ka mid yihiin in asadka ama hantida ummadda Soomaaliland ay leedahay dhulkeenu runtii markii hore berigii hore waxa dhul aad u barwaaqo badan nimankii Ingiriiska ah ee u horeeyay inoo yimi ilaa 1884 iyo 1883 ilaa muxuu ahaay 1880 waxay ka qoreen buugaag badan dhulkeenu waxa dhul aad u qurux badan oo roob badan xayawaankuna ay aad u joogaan khaasan libaaxa iyo maroodiga waxaad ka garan karaysaa dhulkeena badankiisa magacyadoodu waxay leeyihiin ama waa magac maroodi ayuu badan ama magac libaax sida maroodi soox oo kale gacan libaax oo kale arqowdhamo oo kale gondol libaax oo kale iyo qaar badan oo kale imika aanan xasuusnayn arjoog marka waxa weeyaan dhulkaas wuxuu ahaa dhulkeenu wuxuu ahaa dhulka adduunyada dhulka ugu xayawaanka badan la ugu quruxda badan sidoo kale ugaar fara badan baa joogi jirtay nasiib wanaag ama nasiib darro ka noqotay waxa weeyaan dadku binaadku uu batay waxa wadankeena soo gashay maxay civilization bayna soo galay waqtiyada casriga ahaa waxa yimid muxuu ahaay dadkii baa batay waxa soo galay wadankii hub yar yar oo muxuu ahaay dhibaato badan u geysan kara muxuu ahaay xayawaankii faraha badnaa dhulkeena ku dhaqnaa dabeedna libaaxa iyo maroodigu waxay noqdeen labada xayawaan ee dhulkeena runtii sida bataatan ka dabar go'ay waxa la yiraahdaa maroodiga ugu dambeeyay meel boorama agtiisa ah ayaa maraa muddo imika 70 sano 60 sano laga joogo ayuu ku dhintay marka runtii anigu xayawaanka iyo bi'adiyad waan jeclahay marka maadaama uu dalkeenu abtisimo u leeyahay libaaxyada waxaan isku dayay balbaalaha inaan raadiyo oo aan doono oo tafsiirtoodii iyo khaasan dhulkeenu dariska nahaad oo kale aan ka doono marka nasiibana waan helay tii u horeysay baan helo waxa weeyaan waa inta halka fadhida afka kala haysa weeyi runtiina badankooda iyada dhashay imika waxoogaa yar col baan nahdo mar aan waxoo ka qaaday qaar ay dhashay oo aan Djibouti hadiyad u siiyay bay ilaa intii imika wali col bay la tahay waxa way ka dagaalamsan marka imika xageeda u dhaqaaqo way soo boodaysaa kuwan kale laakiin iyaga saaxiib baan wax dhibaatay kama dhaxayaan waa guud ahaan imisa ku nool halkan aad ku xanaanaysaa toddobaad jooga marka runtii waxa weeyaan qiimaha ay leeyihiin imika mesela dhalinyaradeenna imika caruurta iskuulada ku jira iyo muxuu ahaay dadkeena dhalinyarada libaaxa way maqlaan marka xataa caruurta in la keeno oo kuwa iskuulada ku jira yar yar inay yimaadaan in la tuso libaaxu noocu yahay siduu eeg yahay waliba kuwan waa libaaxyo reer Hargeysa oo Hargeysa ku dhasheen waa muwaadiniin weeye marka inay dib u soo noqon dib u soo celino xayawaankeena dabar go'ay maadaama aynu dal maanta dawladnimo iyo qarannimo doonino mas'uuliyad badan baa saaran marka waa ka mid xayawaanka maadaama ay dalkan asal u leeyihiin cali taban libaaxu weyn ognahay waa xayawaanada ama waa bahda la isku yiraahdo habar dugaag waa nooca ugu khatarta badan adigu sidee wala macaamsha cali han والله horta bahalahani khatar iyo wanaag labada way leeyihiin khatar way leeyihiin horta way kala khatar badan dadku waxa yaqaanaan libaaxadu inay tahay inay ka khatar badan tahay libaax oo had iyo jeer hawlaha fudud iyo ugaarsiga qabata laakiin markaad isbarataan labada iyada wanaagsan iyadu lagama yaabo inay ku dhibaatayso hadana dee lafahda aan u baqanin laakiin libaaxu maalintu si koraba maalintu ku arko inuu kaasi xoog roonanayo uu dabeecadiisu uu sii bedelaysa marka waxa laga yaabaa imika inaan dhirbaaxo oo aan joogno seexdo laakiin markuu imika 5 sano 6 sano jiro ma ogolo dhirbaaxada sida imika labada halkaan ku xareeyay oo 8 jir iyo 9 jir ah
oo iyaga aan cid u geli kartaa iminka aanay jirin marka libaaxu markuu sii weynaadaba waa kibriya badan buu leeyahay marka wuxuu jecel yahay hadii inuu gacantiisa wax kaga qabto wixii uu dhibaato arko laakiin gabadhu way ka waxaad leedahay saaxiibtinimadiisu isku halayn male taban marka ilaa xilli intee la eg baad ayaad ka digtoonaanaysaa markuu daada intee la gaaro ugu khatar badan 7 jir hadduu gaaro 8 jir wuxuu noqonayaa ma aamini karaysid indhihi hore way ka bedelanayaan bahala cascaso wuxuu kugu soo eegayaan kuwii hore ku taqaanaa marka laakiin waad kala garanaysaa markuu calaysan yahay waana muudkiisa ku xidhan tahay markuu faraxsan yahay iyo mar kale waad kala garanaysaa inkastoo bini'aadanku la yiraahdo markuu masalan dadku qoslayo weelka way dhoola cadeeyaan laakiin libaax marka dawlihiisa aragto maaha qosol oo markuu khatarta yahay marka dadka qaar baa laga yaabaa isku khaldaan marka haddaad aragto carruur waxaad tiraahdaa idaa ra'ayta anyaaba laysa baarisatan laa taxsabanana laysa daaxikun haddaad aragto ilkaha libaaxoo muuqday ha u qaadin libaaxu qoslayo laakiin waa halisa ka carruur marka waad garanaysaa markuu qoslayo mar kale iyo markuu faraxsan waad kala garanaysaa xilliyada uu ugu cadhada badan yahay ay tahay inaad iska ilaaliso ugu khatarta badan yahay waa xilliyo gaar ah oo calaysan xilliyada uu gaajoodo waa mid marka ay asoolan tahay libaaxadu isagu cidna ma ogola waxaan isla waxa weeyaan bini'aadanka labka ah oo ninka ugu qiirada badan ama ugu hinaasaa weyn baan socon karaa marka cid alle cid uu ogol yahayba ilaa ay da'furo oo ay asoolka joojiso libaaxadu wax u dhawaan karaya saaxiib iyo saaxiib la'aan ma jiro markaas ugu khatar badan iyo markay wax cunayaan marka markuu cunayo wuxuu aaminsan yahay in laga qaaday karo iska difaaciya maadaama libaaxyo kale meesha jooga in laga qaado ayuu ka baqan karaa markii ugu horeysay ma waxay ka tagfiirmeen hal mid oo lab iyo dhadig ay ka tagfiirmeen miya mise dhowr meelood baan ayay iga soo galeen marka intan tafsiir bay u badan yihiin laakiin dhowr meelood bay iga soo galeen ma jiraan ilaa iyo imka qaar baxsaday ama dhibaato ay geysteen ama waxyaalo noocaas kala ma waqad bari hore dhacdo in ay muxuu ahaay halkan ku dhimatay mooyaane adigu de qof ay dhaawacyo u geysteen oo yani mooyaane wax kale oo dhibaato ma jirto in badan oo dadka kamid ah ama magaalada Hargeysa ku nool hadii jalaalo way hadal hayaan libaaxyadii Cali Waran Cade marmarka qaarkood habeenadii marba la isku cabsiya marka si dadka aad arintaas oo kale taxadir inta leeg bad ka muudsan runtii waa arin jirto oo bahalaana waa bahala weyn inta laga waa khatar wada Ilaahay uu siiyana wax xayawaan kale uu galiyay ma garan karaysa haduu saa gacantaada ku soo dhawaato ama isigoo leedisku waa dhacaysa marka laga baqa way tahay laakiin waanu ilaalinaa aad baanu ilaalinaa markay waxaad madadku inay xabad ka dhigtaan dhalinyarada iyo habeenkii markay suuqa iyo waxa ay hooyinkii in lagu cabsiya ayaa imka inta badan u badan yihiin marba xataa la soo wacado booliisku soo aanay may baxsadeen markaasaan hubiya bas warmay way wada joogaan wax baxsaday bariyo dhowto aad bay suuqa loo galiyeen inay baxsan laakiin waxba kama jirin markii libaaxyadan ka nimaadno ma jiraan xayawaano kale oo halkan beertan aad ku xanaanayso ku jira xayawaano badan oo kala ku jiray halkan bahal guudinaya ku jira laakiin bahalihi muxuu ahaay goriyooyinkii ugaadhi kale oo dhan waxa la yiri libaax oo kulli wada dileen marka bariga hore way wada joogi jireen oo waan isbaray laakiin markii dambe ay waaweynaadeen ayaa hadii jeer markay cuntada cunayaan ay isku xanaaqaan dabadna bahalaha